sanadkii tagay ee dhammaaday ee 2017 waxaa Soomaaliya ka dhacay dhacdooyin waaweyn aynu ku bilaabno bisha Janaayo. Janaayo maalin axada sanada 2017 waxaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay magacaabeen guddi ka shaqeeya doorashada gudoomiyaha baarlamaanka. Kowdii Janaayo sanada 2017 madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland ayaa heshiis ku wada saxiixday magaalada Muqdisho. Heshiiskaasi oo ku saabsanaa joojinta xiisada colaadeed ee ka jirta magaalada Gaalkacyo waxaana si rasmi ah heshiiskaasi u saxiixay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed. waxaana goobjoog ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud oo xilliga ahaa madaxweynaha Soomaaliya. 2 Janaayo ee isla sanadkaasi gudihiisa 5 qof ayaa ku geeriyootay 2 qarax oo ismiidaamin ahaa kuwaasi oo ka dhacay agaarka garoonka Muqdisho. 3 Janaayo ee isla sanadkaasi Al-Shabaab ayaa meel fagaara ah midkiiba gacanta midig uga jaray 2 dhalinyaro ah oo ay ku soo eedeeyeen xilligaasi inay xatooyo sameeyeen. 5 Janaayo ee isla sanadkaasi Xasan Sheekh Maxamuud oo xilliga madaxweynaha dalka ka ahaa ayaa xariga ka jaray dhismaha baarlamaanka aqalka sare magaalada Muqdisho. 10 Janaayo ee isla sanadkaasi 54 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa ku dhawaaqay inay kalsoonidii kala laabteen Cabdikariin Xuseen Guuleed oo xilliga ahaa madaxweynaha Galmudug. 11 Janaayo ee isla sanadkaasi doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxaa ku guuleystay xildhibaan Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo helay codadka ugu badan ee xildhibaanada cusub aqalka hoose ee golaha shacabka Soomaaliya. 24 maalin axada ee bisha Janaayo gudoonka golaha shacabka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay guddiga doorashada madaxweynaha oo ka koobnaa 16 xubnood. 25 Janaayo ee sanadkaasi waxaa 2 qarax lagu weeraray hotel Dayax waxaana ku geeriyootay 28 qof iyadoona ay ku dhaawacmeen 51 qof. 22 Janaayo ee sanadkaasi waxaa magaalada Muqdisho lagu doortay gudoonka aqalka sare waxaana gudoomiye loo doortay Cabdi Xaashi Cabdullaahi. 30 Janaayo ee sanadkaasi 31 qof ayaa ku geeriyootay gobolka Baay kadib markii ay cabeen biyo sumaysan. 24 Janaayo ee sanadkaasi gudoonka golaha shacabka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay guddiga doorashada madaxweynaha oo ka kooban 16 xubnood. 8 Febraayo ee sanadkaasi 2017 Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya kadib markii uu ka guuleystay doorashada Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. 22 Febraayo sanada 2017 madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu caleema saaray magaalada Muqdisho waxaana munaasabada caleema saarka ka qayb galay madax ka socotay wadamada Afrika. 26 Febraayo ee sanadkaasi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmi ah xafiiska madaxtooyada uga wareegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya. 23 Febraayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ra'iisul wasaare uu u magacaabay Xasan Cali Khayre. 27 Febraayo ee sanadkaasi waxaa dab qasaare hantiyeed dhaliyay oo ka dhacay suuqa weyn ee Bakaaraha waxaana dimista dabkaasi uu qaatay muddo saacado fara badan ah. 15 Febraayo ee sanadkaasi waxaa xilli habeen ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lagu dilay Allah u naxariistee nabadoon caan ah oo lagu magacaabi jiray Muuse Maxamuud Rooble. 1 Maarso ee sanadkaasi xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku ogolaaday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. 12 Maarso maalin axad ah ee sanadkii tagay ee 2017 ciidamada militariga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la wareegay qaybo badan oo ka mid ah magaalada caasimadda ee Muqdisho iyaga oo ka cabanaya mushaar la'aan. 23 Maarso waxaa magaalada Nairobi heshiis ku wada gaaray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo Kenya. 25 Maarso ee sanadkii tagay 2017 maalin Sabti ah koox burcad badeed ah ayaa afduubtay doon la yiraahdo Caseer 2 oo mareysay meel ku dhow degmada Ayl. 7 Maarso ee isla sanadkii tagay waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres
waxaana muqdisho uu kula kulmay madaxweyne farmaajo 28 maarso ee isla sanadkii tagay kooxda daacish ayaa markii ugu horeysay sheegtay in ay sargaal ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya ku dishay magaalada muqdisho 29 maarso ee sanadkii tagay 2017 xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay wasiirada uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre 6 Abriil ee 2017 Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa si rasmi ah looga qaaday xilkii gudoomiyaha gobolka Banaadir iyadoona la magacaabay gudoomiye Thabit Cabdi Maxamed 8 Abriil ee sanadkii tagay maxkamadda ciidamada Puntland ayaa xukun dil ah ku fulisay 5 nin oo lagu soo eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab 10 Abriil sanada 2017 maalin Isniin ah ugu yaraan 10 askari oo u badan saraakiil ayaa ku geeriyootay qarax oo ka dhacay xero ciidan oo ku taala warshadii hore ee Nacnaca ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho 9 Abriil ee isla sanadkii tagay maalin Axad ah ugu yaraan 15 ruux ayaa ku geeriyootay halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax gaari ah loo adeegsaday uu ka dhacay meel u dhow wasaaradda gaashaandhigga ee ku taala magaalada Muqdisho 24 Abriil gaadiid galbinayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa afafka hore xarunta madaxtooyada Soomaaliya ku jiray Allaha u naxariistee Tahliil Jimcaale Hubane oo ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliya 3 May ee sanadkii tagay 2017 waxaa meel aan ka fogeyn madaxtooyada Soomaaliya lagu dilay wasiirkii howlaha guud ee dawladda Soomaaliya Cabbaas Siraaje 5 May ee sanadkii tagay waxaa golaha wasiirada Soomaaliya xilka qaadis ay ku sameeyeen hanti dhowrkii guud ee qaranka Dr. Cabdinuur Faarax Jimcaale oo lagu eedeeyay in askari ilaalo u ahaa uu dilay wasiir Cabbaas Siraaje 20 May ee sanadkii tagay maalin Sabti ah 23,000 oo arday ah ayaa u fariisatay imtixaanka midaysan ee shahaadiga ah ee ay diyaarisay wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya 7 Juun ee sanadkii tagay 2017 dawladda Soomaaliya ayaa go'aan dhexdhexaadnimo ah ka qaadatay khilaafkiis oo kala dhexgalay wadamada khaliijka 8 Juun 2017 Al-Shabaab ayaa weerar ay ku qaadeen deegaanka Af-Urur waxaana ay ku dileen 40 qof oo saraakiil iyo ciidamo Puntland ka tirsanaa isugu jiray 14 Juun sanadkii tagay 2017 waxaa xilli habeen ah weerar lagu qaaday Pizza House ee magaalada Muqdisho waxaana ku dhimatay 18 qof waxaana dhaawacyo weerarkaasi ay ka soo gaareen dad ka badan 26 qof 20 Juun sanadkii tagay 10 qof ayaa ku geeriyootay in ka badan 18 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo uu markaasi waday qof isi soo miidaamiyay ayaa ku dhuftay xarunta degmada Wadajir 22 Juun ee sanadkii tagay 2017 waxaa qarax baabuur loo adeegsaday uu ka dhacay saldhigga degmada Waabari waxaana qaraxaasi ku nafwaysay 7 qof waxaana qaraxaasi kii ku dhintay kamid ahaa Maxamed Yuusuf Awlibaax oo ahaa wasiirkii dhalinyarada iyo isboortiga ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland 18 July ee sanadkii tagay golaha wasiirada maamulka Puntland ayaa la riday kadib markii codka kalsoonida ay kala noqdeen xildhibaanada baarlamaanka maamulka Puntland oo kulan ku yeeshay xaruntooda golaha shacabka 19 July ee sanadkii tagay waxaa magaalada Muqdisho la keenay 3 nin oo Soomaali ah kuwaasi oo la sheegay inay la shaqeynayeen magafayaasha ku sugan wadanka Liibiya 30 July ee sanadkii tagay waxaa maalin Axad ah qarax gaari lagu xiray oo ka dhacay meel aan ka fogeyn Hotel Makka Al-Mukarrama waxaana qaraxaasi ku dhimatay 5 qof oo shacab ahaa 6 August ee sanadkii tagay waxaa doorasho ka dhacday magaalada Hargeysa waxaana lagu doortay gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland waxaana doorashadii dhacday ku soo baxay Baashe Maxamed Faarax 14 August sanadkii tagay 2017 xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa waxa ay kalsoonida kala noqdeen madaxweynihii maamulkaasi 15 August ee sanadkii tagay hogaamiye ku-xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab Mukhtaar Roobo Abu Mansuur ayaa si rasmi ah magaalada Muqdisho kaga dhawaaqay inuu si rasmi ah uga baxay ururka Al-Shabaab 25 August
sanada 2017 10 qof ayaa lagu dilay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib howlgal military oo ka dhacay beer ku dhow deegaanka Bariire 31 Agosto ee sanadkii tagay dowladda Itoobiya ayaa markii ugu horeysay xaqiijisay in dowladda Soomaaliya ay u soo gacan gelisay Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ka tirsanaan jiray ururkii Onalif 24 Sebtembar sanadkii tagay 2017 madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya in 5 saacadood ay ku xanibtay magaalada Hargeysa 28 Sebtembar sanadkii tagay 2017 7 qof ayaa ku dhimatay 10 kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan meel ku dhow Bacadaha Xamarweyne 1 Oktoobar ee sanadkii tagay 2017 waxa dowladda Soomaaliya ay xilka qaadis ku sameeyeen taliyaashii booliiska iyo sugidda ee degmada Xamarweyne kadib dil loo geystay xubin ka tirsan mas'uuliyiinta ururka haweenka qarana Canab Cabdullaahi Xaashi iyo wiil ee dhashay gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya Batuula Axmed 2 Oktoobar ee sanadkii tagay taliyihii ciidamada garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf Axmed ee magaalada Galkacyo iyo qof kale oo rayid ahaa ayaa ku dhintay toogasho ka dhacday garoonka 22 Oktoobar ee sanadkii tagay waxa xilalkii ay hayeen iska casilay Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo ahaa wasiirkii gaashaandhigga Soomaaliya iyo taliyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Axmed Jimcaale Geedi 24 Oktoobar ee sanadkii tagay qarax gaari xamuul ah ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho waxaana qaraxaasi ku dhimatay dad ka kooban 400 oo qof iyadoo ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 700 oo qof 28 Oktoobar ee sanadkii tagay 28 qof ayaa ku geeriyotay weerar lagu qaaday hotel Naasa Hablood 2 waxaana dadka dhintay ku jiray wasiirkii arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed iyo ex xildhibaan hore Cabdinaasir Gaarane waxaana dadkii dhintay ku jiray taliyihii booliiska Daynile 29 Oktoobar ee sanadkii tagay xarunta madaxtooyada Soomaaliya waxaa lagu qabtay shir u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira kaas oo lagu soo afjaray khilaafkii u dhaxeeyay dowladda Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada 13 July sanadkii tagay 2017 magaalada Muqdisho waxaa markii ugu horeysay lagu qabtay shirkii golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya 15 November sanadkii tagay 2017 Marian Qaasim wasiirkii gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa iska casishay xilkii wasiirnimo 15 November ee sanadkii tagay 2017 ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa tagay degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha waxaana uu dhagax dhigay garoonka degmadaasi 19 November ee sanadkii tagay 2017 maalin axad golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaamay in Soomaaliya ay Itoobiya u dhiibto Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka tirsanaa saraakiisha ururka Onalif 26 November ee sanadkii tagay 2017 ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa Maxamed Mursal Sheekh waxa uu magacaabay wasiirka difaaca Soomaaliya 6 December ee sanadkii tagay 2017 maamulada ahlu sunnah iyo kuwa Galmudug ayaa heshiis rasmi ah waxa ay ku wada saxiixdeen xarunta madaxtooyada Soomaaliya 8 December ee sanadkii tagay waxa Muqdisho si rasmi ah kaga bilowday ciyaaraha tartanka maamul goboleedyada Soomaaliya iyo gobolka Banaadir 11 December ee sanadkii tagay Allah u naxariistay waxa magaalada Muqdisho lagu dilay Maxamed Ibraahim Gaabo oo ahaa wariye ka tirsanaa telefishinka Kalsan 13 December 2017 baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay miisaaniyadda dawladda ee sanadka soo socda oo la sheegay inay dhan tahay in ka badan 274 milyan oo dollar 14 December ee sanadkii tagay 2017 waxaa qarax ismiidaamin ahaa uu ka dhacay dugsiga tababarka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee General Kahiye waxaana qaraxaasi ku dhimatay 16 askari oo ka tirsanaa booliiska Soomaaliya 30 December ee sanadkii tagay 2017 ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa weerar ku qaaday hoyga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiin